garoonka korontada oo ku yaala degmada wadajir ee gobolka Banaadir waxaa si rasmi ah kaga furmay koob kubadda cagta kaas oo loogu magac daray xirfadlayaasha CAF. Tartankan waxaa ka qayb galaya 7 kooxood oo kala duwan iyadoo ay ka soo muuqanayaan ciyaartoy ka ciyaara horyaalada kala duwan ee dalkeena. Furitaanka koobkan waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan maamulka sare ee degmada Wadajir, odayaasha marjaca sportska ee degmadan, gudoomiyaha kubadda cagta maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale marti sharaf kale. waxaa goobta laga jeediyay khudbado kala duwan. koobkan waxaa la koobka xirfadlayaasha dhammaan degmada wixii oo sare ilaa gobolka way qof walba oo xirfadiisa kubadda cagta ay tahay ayaa ka soo qayb galayaan. 7 koox ayaa loo qabtay maanta waxaa lagu furayaa kooxda Jimcooley iyo kooxda Degmada. koobkan maanta furmaayo oo ka furmaayo degmada Wadajir oo magaciisu yahay xirfadlayaasha oo cid walba isboorti aan baleeyra ciyaari karaan. waxa aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha isboortiga degmada Wadajir saaxiibkii Cabdiwali shaqo adag oo haya degmada Wadajirna si fiican isboortiga uu soo iftiimay ma sha Allah. waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa gudiga maamulka degmada Wadajir oo uu horeeyay gudoomiyaha siyaasadda, gudoomiyaha arrimaha bulshada ahna kusimaha. waxaan leeyahay aad u mahadsantihiin si aad u garab taagantihiin isboortiga degmada Wadajir. waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan goobjoog ka ahaano tartankan qiimaha badan ee maanta la furayo oo ujeedadiisu tahay isdhexgalka bulshada. tartankaas oo ku magacaaban xirfadlayaasha isboortiga ee degmada Wadajir. waxaan rabaa inaan aad ugu ammaano maamulka isboortiga ee degmada Wadajir oo mar walba maxay ahayd isku hawla sidii dhalinyarada uu isku keeni lahaa isboortigana hor ugu marin lahaa. waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay inaan ku hadlo magaca dhammaan qurba joogta Soomaaliyeed ee ka tirsan degmada Wadajir. waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada madaxda iyo majahaba inta meesha isugu timid. waxaan leeyahay waa salaamantiin koobkuna waxaan rajaynaynaa inuu si farxad leh ku socdo oo qiimo leh. waxaan ciyaarayo ciyaartoyda xirfadlayaasha degmada Wadajir oo galabta u dhaxeeyo Jimcooley iyo Degmada. waxaan rajaynayaa kulamadena sida hore idinku sheegnay inuu ahayn kulankii ugu horeeyay ama ku xigay hadda kulankii ka horeeyay oo ka dhacay stadium degmada Wadajir. waxaan idinku sheegnay ciyaaro iyo kulamo kale ka duwan kuwa qabad doona iyo kuwa kale ka sii badan. galabta waxaan mar kale goobjoog u nahay in furitaankii tartankii kubadda cagta xirfadlayaasha ee maanta tartanka meesha ka furmi doono kaasoo soo qabanqaabiyeen maamulka guud ee degmada Wadajir guud ahaan gaar ahaan qaybta arrimaha bulshada qaybtiisa isboortiga la shaqeyso. waxaan mahadcelinayaa mas'uuliyiinta kala duwan meeshan goobjoog ka ah inay tartankan furitaankooda goobjoog u ah dhammaantoodna waxaan leeyahay aad u mahadsantihiin anagoo ku hadlaya magaca isboortiga gobolka Banaadir. waxaa sharaf noo ah maanta inaan goobjoog u ahna furitaanka tartanka kubadda cagta ee xirfadlayaasha soo qabanqaabiyeen maamulka isboortiga degmada Wadajir. waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin. waxaa galabta farxad noo ah inaan ka soo qayb galno tartankan loogu magac daray xirfadlayaasha isboortiga ama kubadda cagta ee degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir ee uu soo qabanqaabiyey xafiiska ciyaaraha degmada Wadajir. waxaan leenahay gudoomiye waa ku mahadsan tahay mar koowaad iyo mar labaad sida wanaagsan ee aad u soo abaabushay koobkan qiimaha iyo qaayaha leh ee lagu qabanayo degmada Wadajir. waxaa kaloo rabaa ciyaaruhu waa isdhexgalka bulshada ma lahan cadaawad. qofka ciyaaraya waxaa xafiirtankooda ka dhexeeya inta garoon ku jiro mar haddii bannaanka loo soo baxo waxaad tihiin laba noo saaxiiba ah maadaama ay ciyaaruhu yihiin isdhexgalka bulshada. ma lahan iscadaawaysi iskooxaysi gaar ah. iskooxaysigu waa inta garoonka lagu jiro. kooxaha dan wadaagtay sidoo kale Jimcooley ayaa wada ciyaaray kulankii furitaanka koobka kubadda cagta ee xirfadlayaasha CAF.